بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dadweynaha reer Djibouti meel kastoo joogtiin dalkiiyo dibaddaba waan idin salaamaya. Shalay waxaad ogeydeen bishii February 23 oo Jimco ahayd in doorashadii qaldanayd, doorashadii qallocsanayd, doorashadii tuugada ahayd inay ka dhacday dalkeenna. waxaan marka ugu horreysa halkan ka hambalyaynaynaa dadweynaha reer Djibouti ee sida baaxadda weyn leh sida ballaaran uga soo jawaabay codsigayagii ku aadanaa inay qaadacaan doorashada boobka ee dalkeenna ka dhacday mar kale. dadweynaha waan hambalyaynaynaa. waxaa kaloon hambalyaynaynaa shakhsi kastoo reer Djibouti wiil iyo gabadhba ama dalka ha joogo ama dibadda ha joogo oo ka qayb galay weedhaas u yeedhistaas baraarujintaas ummadda reer Djibouti lagu baraarujinayo inayna ka qayb gelin doorashada oo ayna soo codin. runtii guusha maanta soo hoyatay waa guul cad weeyaan. ummadda reer Djibouti siday u dhan tahay waxa ay diiday ay qaadacday inay soo codayso iyadoo ka jawaabtay baaqii ee u fidinay haddii aan nahay mucaaradka isbeddel doonka, mucaaradka raba in dalkeenna ay doorashooyin xalaala oo nadiifa oo hay-ad qaran oo madax bannaan oo ka madax bannaan taliska ay gacanta ku qabato. dhammaan waan hambalyaynaynaa dadweynaha reer Djibouti ciday doonta ha noqoto, xisbigay doonta ha noqoto, mucaaradkay doonta ha noqoto iyo bulshada rayidka oo runtii ka jawaabtay baaqii xoogaga isbeddel doonka. sidaad ogtihiin doorashadani waxaa caddaynaya inay dadweynuhu ay qaadaceen. waxaan ogeyn in talisku intuu abaabulay dad uu lacag siiyey in xaafadaha la gargaraacayay oo kama odhanaynin kaalaya noo codeeya ma odhanaynina waxay odhanayeen kaalaya kaarashiina gurta sidaad u codaysiin. taas waxay ku tusaysaa ay calaamad u tahay sidaa telefishinka iyo raadiyaha keliya ee dalkeennu leeyahay aad kala socoteen. waxay ku tusaysaa ay maragmadoon u tahay in dadweynuhu ay qaadaceen. waxa kale oo maragmadoon u ah oo caddaynaya inay dadweynuhu qaadaceen doorashadii tuugada ahayd, boobka ahayd, xaqdarrada ahayd ee shalay ka dhacday 48 saacadood ka hor maalintii Arbacadii. wasiirka arrimaha gudaha waxa uu kormeer ku soo sameeyey arundusmaayada waxaana uu ugu yeedhay dadweynaha inay kaarashooda soo doontaan. taasina waxay ku tusaysaa ay caddayn u tahay, maragmadoon u tahay inay dadweynuhu ay qaadan waayeen ay diideen kaarashii lagu codaynayay. waxaa kaloo maragmadoon u ah talisku uu arkay uu ogaaday in doorashada la qaadacay oo dadweynuhu ay diidan yihiin. maalintii jimcihii ee shalay ee la codaynayay saacaddu markay ay ahayd 1:00 duhurnimo oo 10 ayaa dadweynaha reer Djibouti SMSyo ayaa loogu diray telefoonadooda mobilka ay gabcaha ku sitaan oo lagaga codsanayo inay doontaan ay soo qaataan kaarashii ay ku codaynayeen. taasina waxay maragmadoon u tahay ay caddayn u tahay maalintii foodku dhacayay oo weliba gelinkii damba 12 wixii ka dambaysay inuu talisku isagoo adeegsanaya Jig Telecom oo la xidhiidho dadweynaha si dadku ay kaarashooda u soo qaataan. taasina waxa ay ku tusaysaa in haba yaraatee doorashadaas meesha ka dhacday ay dadweynuhu ay aad u qaadaceen ayna diidan yihiin. walaalayaal, doorashadii waa ayna dhaaftay. waxaa halkan maanta sabtiya waxaa curanaya wakhti cusub weeyaan. nolosha dadweynaha reer Djibouti ka shaqaynaya iyo ka beelashaqada, dhakhtarrada, caafimaadka, iskuullada, dhammaan nolosha bulshada haba yaraatee wax iska beddeli doona ma jirto. waayo talisku waa taliskiiun, waayo maamulku
idilkiiba dalkiyo dibaddaba hambalyadaas kadib iyo guusha